السلام عليكم albaabka ha furin ilaa aad codkayga maqasho sheekadeena maanta waxay ku baraysaa in aadan furin albaabka guriga cid kasta oo soo garaacda inta aadan hubsan cidda uu yahay mar hore ayaa inoogu dambeysay inaynu soo gudbino muuqaal xambaarsan cabsi welwel iyo baqdin maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa sheeko kooban balse xiiso badan waxaa jirtay gabar yar oo lagu magacaabo Duuna da'deedu waa 15 sano Duuna hooyadeed waxay dhimatay iyada oo yar waxayna hal guri kula noolayd aabaheed oo uga dhignaa wax kasta waalid wehel walaal iyo xitaa saaxiib nool maalmeedkooduna waxa uu ahaa sidan aroorta hore ayay toosaan waxa ayna diyaarsadaan quraacdooda intaas kadib waxay raacdaa baska iskoolka waxayna toos u aadaa dugsigeeda halka aabuhu dhaqaaqo shaqadiisa maalin maalmaha ka mid ah marka ay quraacdeen ayuu aabuhu sheegay gabadhiisa inuu shaqada ku soo daahi doono wuxuuna ku yiri hawlweyn haddaad fiidkay weydo waxaan ku jirnaa xisaab xirka shirkadda waayahay aabe ayay ugu jawaabtay sidii caadadoodu ahayd way kala dhaqaaqeen Duuna waxay aaday waxbarashadeeda halka aabuhu u socdaalay dhinaca shaqada mid walba oo ka mid ahna waxa uu haystaa fure uu isaga furo albaabka guriga waxaan filayaa inaad garan karto in Duuna ay ka soo hormartay aabaheed guriga ayay iska furtay waxay bilowday inay ka shaqeyso layliska ama su'aalaha shaqada guri ee laga rabo intaas kadib waxay diyaarsatay cashiradeeda waxayna la hor fadhiisatay TV-ga waxayna go'aansatay inay sugto aabaheed ayna daawato barnaamijyada ka socda TV-ga waxay noqotay goor dambe waa saqbad waa gabar yar oo aanan karin inay soo jeedo caawa oo dhan waxayna ku gamacday TV-ga hortiisa markii ay seexatay Duuna waxay aragtay riyo cajiib ah waxay taagan tahay waddo highway ah baabuurtuna waxay waddada kaga gudbaysaa xawaare aad u sareeya oo aysan suurtagal ahayn inuu qofna ka gudbo intaas kadib waxay maqashay dhawaaqa ama cod qaylo ah oo ka yeeray dhinaca kale ee waddada waa aabaheed waxaad moodaa inuu gacmaha ka xiran yahay waxay isku daday inay badbaadiso oo ay xariga ka furto balse waddada oo mashquul iyo baabuurta oo ku gudbaysa xawaare sare ayaa ka hor istaagay inay ka tilaabto waddada mar walba oo ay waddada lug saarto gaari ordaya ayaa ku qasbaya inay dib uga noqoto jidka waxay maqlaysaa qaylada aabaheed waxaad moodaa inuu wax u sheegayo balse guuxa gaadiidka dartiis way adag tahay inay fahanto fariinta uu gaarsiis leeyahay waxay go'aansatay inay isku daydo inay fahanto waxa uu sheegayo uu ilmaynayaa korna uu u qaylinayaa waxay ku guulaystay inay erayo kooban ka garato hadalkiisa wuxuu ku leeyahay ha furin albaabka way ka soo booday hurdada iyada oo argagaxsan iskeed uma kicin ee waxa toosiyay shanqarta garaaca albaabka waxay u soo degtay dabaqa hoose si ay uga furto albaabka inta ay safurin waxay isha saartay daloolka albaabka si ay u hubiso qofka garaacaya waxay aragtay wejiga aabaheed indhaha ayuu aad u kala hayaa iskumana qabanayo xataa hal mar wuxuu xoog u garaacaya albaabka isugu aabo aan ka furaya ayay tiri furaha ayay gelisay albaabka balse waxay xasutay hadalkii aabaheed ha furin albaabka mar labaad ayay eegtay daloolka albaabka wejiga aabaheed ayay aragtaa balse waxa shaki leh sida uu indhaha u kala hayo waxaad moodaa qof naxsan oo arkaya wax argagax leh ama cabsi ku abuuray dareen shakila ayaa u dusay laabteeda cod dheer ayay ku dhawaaqday waxa ayna tiri aabe meeya furayaashaadii uma jawaabin wuxuuna sii waday garaacista albaabka mar labaad ayay la hadashay aabe ma waxbaa jira fadlan ii jawaab waxaad moodaa inuusan maqlin su'aasheeda albaabka ayuu garaacayaa mana bixinayo wax jawaab ah waxay su'aashay aabe gacaliye ma keliga ayaad socotaa mise cid ayaa ku helisaa sidoo kale uma jawaabin ugu dambayn waxay u sheegtay inaysan albaabka furin haddii uusan u jawaabin hadal walba oo ay tiraahdo jawaabtiisu waxay noqonaysaa garaacista albaabka oo la sii xoojiyo dhowr tallaabo ayay ka durugtay albaabka su'aalo badan ayaa maskaxdeeda ku soo dhacaya balse waxay xasuusan tahay ballantii aabaheed ha furin albaabka gacmaha ayay dhagaha saartay si aysan u maqlin garaacista albaabka oo ay u adkaysan weyday waxayna bilowday inay qayliso xaaladaas adag iyadoo ku jirta gacmahana madaxa saaratay wejigana dhulka ku haysa ayay mar labaad gamacday xabaar kadib ayay toostay iyadoo garaacista albaabku joogsatay waxay daloolka ka eegtay in aabaheed weli joogo iyo inuu tegay waxay aragtay aabaheed oo sidii u taagan indhahana kala haya oo aan hal mar xitaa isku qabanayn caloosha ayay adkaysatay waxayna go'aan ku gaartay inay furto albaabka si tartiib ayay furaha u gelisay shanqar la'aan ayayna ku furtay albaabka balse waxay indhaheeda ku aragtay mucjisadii ugu xumayd nolosheeda waa madaxii aabaheed oo la soo gooyey laguna xiray xarig ka lusha albaabka korkiisa waxaa lagu beegay daloolka albaabka si wejigiisa looga arko gudaha albaabka dhinaciisana waxay ku aragtay warqad ay ku qoran tahay gabadh caqli badan dabcan sidaynu fahmi karno dadkii aabaheed dilay ayaa u reebay fariintan maadaama ay ku guuldarraystay inay ka furtay albaabka iyagoo u sheegay inay tahay gabadh yar oo caqli badan sidaana kaga tegey